muranka xuduud badeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya waa silsilad iyo dhacdooyin si weyn iyo xeelado kala duwan falcelintooda dawladda Kenya u qorshaysay maantana maraya inay Kenya ku hanjabto awood ciidan oo ka dhan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. haddaba aanu tixraacno taariikh ahaan sida dhacdooyinkan isu xigxigeen. asalka khilaafka horaantii sanadkii 2000 saraakiil sarsare oo Kenyaan ah ayaa helay macluumaad lagu kalsoonaan karo oo ay soo saartay shirkadda saliidda ee Norwegian Oil Firm taasi oo sahamin shidaal oo ay Soomaaliya ka samaysay sanadkii 1987 ku ogaatay in aaga xuduud badeedka Soomaaliya la wadaagto Kenya uu ku jiro shidaal iyo gaas dabiici ah oo haddii uu soo baxo isbedel weyn ku keeni doona qiimaha shidaalka iyo tabarta adduunka. macluumaadka baaritaanka ayaa tibaaxay in biyahaasi uu dhex jiifo shidaalkii ugu badnaa oo laga helo waddan Afrikaana. sanadkii 2005 dawladda Kenya ayaa wafdi u soo dirtay magaalada Baydhabo oo xilligaasi xarun u ahayd dawladdii federaalka ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka ahaa Allaha u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed si arrinta ay uga hadlaan madaxweyne Yuusufna uga dhaadhiciyaan in xuduud badeedka labada dal wax laga bedelo. madaxweyne Yuusuf oo dawladdiisu xilliga la harjadaysay duruufo amni ayaa gabi ahaanba diiday in wax wada hadal uu la furo Kenya isagoo uga digay in la shaki geliyo madax banaanida dhuleed badeed iyo cireed ee dalka iyo ku xadgudubka qarannimada dal ahaan ee Soomaaliya. xaaladda ayaa cirka isku sii shareertay si weyn u soo shaacbaxday 10kii bishii 3aad 2009 markii Kenya sheegtay in ay leedahay 200 oo nautical miles oo cabirka badaha ah oo kamid ah biyaha Soomaaliya taasi oo cabirka qalfoof badeedka Kenya ka dhigaysa 116,000 oo kiiloomitir oo isku weera. kadib qoraal hordhaca oo ay u dirtay guddiga qaramada midoobay ee xadeynta iyo qaabeynta qalfoof badeedka badaha oo magaciisa loo soo gaabiyo CLCS kulankoodii 2009 shaqsiga ugu muhiimsan oo Kenya ka caawiyay nidaamka badkoobka wuxuu ahaa diblomaasi u dhashay dalka Norway oo lagu magacaabo Herland Bereke kaasi oo xilligaasi ka mid ahaa guddiga dawladda Norway u qaabilsanaa qalfoof badeedka iyo Dr. Carles Hensi oo ah xeeldheer sharciyada badaha ah una dhashay dalka Jarmalka. bishii February 2009 ka hor wax ka yar 3 bilood waqtigii loo ballansanaa in qaramada midoobay qaybta CLSC loo gudbiyo xogta qalfoof badeedka dalalka. arrintani waxay ahayd dalbashadii ugu horeysay ee dawladda cusbeed ee Soomaaliya diiradda saarto. dawladda federaalka ah ee ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ee cusbeed xilligaasi kama aysan warqabin in wakiilkii xogayaha guud ee qaramada midoobay xilligaas u joogay Soomaaliya Axmed Walad Cabdalla uu isla xilligaasi bilaabay diyaarinta xogta qalfoof badeedka Soomaaliya. Axmed Walad Cabdalla ayaa Norway ka dalbaday inay yimaadaan Soomaaliya si ay uga caawiyaan diyaarinta xogta qalfoof badeedka oo 3 bilood ka hor wax ka yar ka harsanayeen gudbinteeda. bishii Abriil 2009 dawladda Kenya iyo Soomaaliya waxay kala saxiixdeen heshiis isafgarad iyagoo isku raacay in mid walba si iskiisa u gudbin doono xogta qalfoof badeedkiisa iyadoo laga yaabo in mid walba xogtiisa uu ku darsado biyaha hadda muranku ku jiro. Soomaaliya waxa uu saxeexay heshiiskaasi isafgaradka ahaa wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee xilligaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kadib markii uu warqad soo qoray ra'iisul wasaarihii xilligaasi Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. xaqiiqduna ahayd in Soomaaliya aysan heshiiskaasi qoraalkiisa wax fikrada ku lahayn oo uu ahaa mid Kenya ay soo diyaarisay qabyo qoraalkiisa. Cabdiraxmaan waraysi uu 12kii bishii Abriil 2009 siiyay mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ah ee magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay in Kenya ku xadgudbayso xuduudda badda Soomaaliya ayna ku heshiiyeen in wada hadal lagu xalliyo arrinta. runtii Kenya waxay ku xadgudbaysaa xuduudeena iyo madax banaanideena dhuleed waana dambi aan laga xisaabtamin oo weyn. waxaan isku afgaranay in dhul badeedkeena ay nagu haystaan aan ka wada hadallo ka hor kulanka qaramada midoobay ee xadeynta qalfoof badeedyada oo loo ballansan yahay bisha May 2009 ama waxaan isla tagi doonaa maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ-da ayuu waraysiga uu xilligaasi bixiyay ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. maxay Kenya rabtaa? Kenya waxay doonaysaa in xuduudda laga cabiro dhanka bariga fog ee gobolka bari ee Kiyunga halka Soomaaliya ay xoojinayso xariiqda ka hooseysa xeebaha Kenya. Kenya waxay awoodi weyday inay la timaado wax cadeymo ah oo taageera sheegashadeeda ha ahaato magac taariikhi ah oo ku yaala deegaanka ama waxyaabo kale oo gaar ah. erayada ugu badan ee qaranada Kenya adeegsadeen doodii dacwadda ICJ-da waxay ahaayeen Soomaaliya waxay ku xadgudubtay heshiiskii safgaradka ahaa ee labada dal wada galeen sanadkii 2009
dhinaca kale dooda Soomaaliya waxay ahayd mid waafaqsan oo la cuskanayay qodobada 15aad ee xeerka badaha qaramada midoobay UNCLOS. sidoo kale dooda Soomaaliya waxay ku salaysnayd sharciga badaha Soomaaliya iyo Kenya. labada xeer ee labada dalba waxaa la ansixiyay sanadkii 1972 munaafaqada iyo laba wajiilaynta Kenya. 17 February sanadkii 2010 Kenya waxay xaraashtay xirmooyin shidaal oo ku jira aagbadeedka lagu muransan yahay. xirmooyinka Kenya xaraashtay waxaa ka mid ah lambar 22, 22, 23 iyo 24 iyaga oo ka iibiyay shirkadaha shidaalka ee Stat, ENI iyo Total. bishii February 2019 waa sanadkan aan ku jirnay, Kenya waxay si been abuur ah ugu eedeysay Soomaaliya inay iibinayso laysanka shidaalka aaga lagu muransan yahay, meesha dawladda Kenya ay tahay tan kol hore xaraashtay aaga lagu muransan yahay. dhanka kale Soomaaliya waxay marar badan ka codsatay Kenya in dib loo furo wada hadallada muranbadeedka labada dal, laakiin Kenya ayaa diiday dhammaan casuumadihii dawladda Soomaaliya ay u fidisay si loo wada hadlo loona xalliyo khilaafka jira. Kenya waxay markasta ka go'nayd in ay fashiliso si socoshada wada hadalka labada dal iyada oo ay rabtay inay ka faa'iideysato maqaalka caalamiga ah ee 36 si aan dacwadda loo horgeyn maxkamadda caalamiga ah ee ICJ-da. muranka ka dhashay dacwadda labada dal ayaa mar kale cirka isku sii shareeray kadib markii Soomaaliya bishii Agost 2014 dacwad Kenya ka dhan ah u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ-da kuna eedeysay Kenya ku xadgudubka shuruucda caalamiga ah iyo xuduud badeedka Soomaaliya. dawladda Soomaaliya ayaa isla xilligaas shaacisay inay ka daaleen dhammaan wadiiqooyinkii kale ee wada hadalka si xal looga gaaro khilaafkan soo jiitamay ee labada dal. bishii Oktoobar 2015 Kenya waxay carqaladaysay inay ICJ dhageysato dacwadda badda iyagoo ka cagajiiday ogolaanshaha dacwaddaasi, balse ICJ-da ayaa dhageysigeedii ugu horeeyay bilowday intii u dhaxaysay 19 ilaa 20 bishii September 2016. dawladda Kenya ayaa xilligaasi codsatay inay ICJ-da dacwadda soo celiso oo loo ogolaado inay labada dal ka wada hadlaan khilaafka, laakiin maxkamadda ICJ-da ayaa bishii February sanadkii 2017 waxay joojisay codsigii Kenya iyadoo ku qanacday doodii Soomaaliya ee ahayd in sharciga iyo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ-du uu kala saaro Soomaaliya iyo Kenya. docda kale dawladda Soomaaliya ayaa warqad ay u qortay dhammaan hawlgallada joogtada ah ee qaramada midoobay ee fadhigoodu yahay New York waxay ku wargelisay in dacwadii badda ee Soomaaliya iyo Kenya mar kale dhacayso bisha September 2019 sanadka 2020 uu soo bixi doono go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda ICJ-da. halkaasi oo xal marayo maanta wuxuu khilaafka Kenya iyo Soomaaliya isugu soo biyashubtay Kenya oo ku baaqday in muruq iyo military uu yahay xalka kaliya ee Soomaaliya looga hortagi karo. daawadayaal dhageystayaal maqaalkan oo ku qornaa luqadda Ingiriisiga waxaa qoray aqoon-yahan Faarax Maxamed Maxamuud Bukhari, waa qoraa iyo falanqeeye siyaasadeed oo ku takhasusay siyaasadda iyo amuuraha caalamka, waana daneeye cilmi baaris iyo siyaasadda Geeska Afrika. turjubaadda iyo baahintuna waa warbaahinta Daljir.